صاحبك قلبك وناكسن وددك دونك وناكسن قلبك ودن واستميت بكعدنك وكله ما حمل وحمانا وانا ددك دبعتده ugu faraha badan ay ku dhacdo mujtamac marka la eego dadka badankoodana waxa yaqaan wanaagooda inuu yahay daciifnimo iyo taqanimo ولكن لا تحزن يا صاحب القلب الأبيض نبي صلى الله عليه وسلم وحوليه يدخل الجنة أقواما أفئدتهم مثل أفئدة الطير أي بمعنى جنة وحقا يقدر قلبيته زي سيد قلبيته شمبرها أوكله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدين ولا سو دواada اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد نبينا كصلي إن شاء الله. maanta waa anigoo soo noqday after long time waxaan u maleynayaa almost 2 years ay ugu dambeysay YouTube. soo dhawaada ay leedahay videogii ugu horeeyay ku bilaabayo 2025 insha Allah. waxaan rajeynayaa sidaan usoo noqday mid ku socoto oo ku guuleysataa walaalahan wuxuu ka faa'iideysaa inuu ilaahay iga dhigo biidnillah kuwii wax kala faa'iideysta ilaahay naga dhigo insha Allah wanaaga iyo khayrka. marka soo dhawaada idin leeyahay video yar ay idinku wadaa meeshan oo caata asaga sidiisa dhanba alxamdulillaah. maanta waxaan ka bilaabaa after school ciyaalka markaan iskuulka jadan ka shaqeyn doonaa cunto yar baan sameyn doonaa waxyaalo badan ayaa videogan ku dhan biidnillah. haddii markii kugu horeysay aad tahay oo channelkayga soo booqato waxaan ku leeyahay soo dhawow gacmo furan. haddaa hore ila joogi jirtana oo i xasuusatid ma ii haystay soo dhawow waan ku leeyahay mar kale gacmo furan biidnillah. waa walaashin bishaaro oo idiin dhexeysa soo dhawaada. plantskan yar aa arkeysiin wiilkayga iskuulka kasoo qaatay waxaa rabay inaan iska tuuro laakiin markasta wuxuu dhahaa hooyo plantigayga wuu korayaa hadda biyaha ka daaya waxaad leeyahay iska dhinta iska tuure marka ma tuurtaa miska haysata hale haddana haddaa tuuro waxaa kaba qaadhood inuu dhaho hooyo maxaa iiga tuurtay plantigii soo meeshiisa ugu celiyay. hadda sidaa arkaysaan kajadiya waxaa waay servicekii iyo weelasha iska soo dhaqay. xaggan waxaa ii oolo dhar mataqaanaa shalay dhaqay inaan laalaabo. markaan laalaabo insha Allah maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago maraq yaro aad u fudud oona qudrad laga sameynayo biidnillah. oo waxaad doontaa ku cuni kartid hadaa noqoto bariisa ugu sameysan kartaa hadaa noqoto khubis lagu cuni karaa chapati bastada xataa waa lagu darsadaa biidnillah. aad ayuu u fudud yahay waana very healthy especially ciyaalkaaga hadday mataqaanaa yihiin ciyaal oon cuneynin khudradda vajiga insha Allah aad u kaa caawin doonaa. waxaa waaye mana dareemayaan inay qudaar cunayaan maasha Allah. so waxaan rabaa inaan idiin tuso iyadana biidnillah. hadda xaga sida arkaysaan waxaan kusoo diyaarsaday khudradda qayb ka mid ah
basal iyo waxaan sameyn doonaa basasha iyo toonka iyo maxay ahayd jinjarka sanjabiilka qoyan waxaan sameyn doonaa intaasi ayaa isku shiileynaa bacdeen markaa isku shiilno qudaar kasta haysatid ayaa alaabtan ku darsan kartaa inay qudrad gurigaaga taasho ku dareynaa biidnillah toonka haddaa arkeysiin waxaan ku sameeyey microwave-kan geliyey baasha wax lagu kululeysta intaan geliyey 30 second aan ku daayay soo fiiqistaasi badan wuxuu kaaga sahlayaaba inaad ku rafaadin 30 second aa gelinaysaa markaasaa ugu soo bixisidna asagoo saa u jilcay ama waa tumaysaa haddaa ratid ama sidiisa ugu dhex dari kartaa asagaa burburi doona biidnillah sidaasaan haddana mooyahan u isticmaalaya waa ku tumaya waa ku daraya sida arkaysaan waxaan kusoo daray 2 xabo yaanyo oo fresh 2 xabaan isticmaalay iyo waxaan isticmaalayaa sun-dried tomato oo gasaca ku jirto oo la shiilay biidnillah laakiin haddaa haysatid mida oo dhalada ku jirto qasaca waa isticmaali kartaa biidnillah soo waan intaasaan isticmaalayaa laguma badinayo tomaatada markaa intaasi markaan isku shiilo xaggan waxaan ku haystaa waa spinachka muhiim uu yahay maxay ahaydey maraqan ani markasta waa isticmaalaa bilaa spinachna waa sameeyey laakiin waxaa dareemay bilaa spinachka wax weyn ka maqan marka insha Allah isku day haddaa haysatid ku darsatid haddaad haysanin waxa u badisaa qudaarta kale oo cagaarka ah u badi maraqan inuu maraq oo gaduudan oo red inuu noqdo marabi mana rabo yellow inuu noqdo maraq waxaan rabaa meel dhexaad ah marka masha Allah inuu kusoo baxo so waxaan isticmaali doonaa spinachka intaasaan ku dari doonaa ma badna spinachka wuxuu noqonayaa wax yar oo gacantaada sacabkaada dhan uu noqon doonaa markuu karadhoodi qudaarta wataas yaanyada saasay usoo shiilmaysaa yaanyada waa shiidi kartaa daarad laakiin muhiim ma ahan hadhowdi arki doontiin waxaan oo dhan marka laisku kariyo siday iskugu soo bixi doonaan ayaga wada jajabi doono in yaro biyo ku dareynaa kabacdi spinachka waxaan rabaa inaan soo jarjaro spinachka waa inaa jaryaris soo jarjartaa biidnillah haddii kale haddaa sidiisa ugu dhex shubno hadhowdii caleentiisa mataqaanaa iyadoo waaweynay taagnaanaysaa laakiin waxaa rabaa green yar inuu siiyo green inuu noqdaan rabaa maraqa uu dhawaado biidnillah sidaasaa u yaryareynaya laakiin haddaa jeceshahay isagoo waaweyn ku dhex sidayso marka maasha Allah intaasi markii isku soo karina daboolka isku saaray waxaa ku darayaa frozen veggie ku darsada aniga laakiin carrot freshka ku darsan kartaa baradha ku darsan kartaa
waxa alla waxaa haysatid ayaa ku darsan kartaa. ani xaggan waxaan isticmaalaan ku dara hadda waa carrot, broccoli iyo maxay ahayd cauliflower. insha allah intaas inay helaan jeclahay, laakiin wax kale haddaa haysatid kulli ku wada dar, ma diidaayo maraqan maasha allah. intaa markaa isku darno waxaa sameynaysaa biyo karkaraya aa ku gedinaysaa, waa buuxinaysaa. ani hadda haaf aa ku shuba, haaf kalena waa ku shubi doonaa. kadib waa isku dabooleysaa. daboolka intaa saartid dantaada ka qabsanaysaa. marka kabacdi waxaan ku daraa idin tusi doonaa biidnillaah. aniga maraqan markaa bilaabayay sida arkayseen after school markaa ciyaalka geynay ahayd, waxay ahayd around 10:30 tobankii iyo barkii subaxnimo. miyay aaminaysaa ilaa iyo 2 duhurnimo markaa iskoolka ciyaalka dooni rabay wuu iska saarnaa. dabka waxaa u saaray meesha ugu hooseyso ugu gaabana saaray. damo maraqaani mataqaana ayaa dab yar ku karisid, maraqo kalix maahan, cunto kastaa karinaysid moo aad dab yar ku karisid oo waqti badan iska karto, dab yar ku karto, cuntada degdega lagu kariyo mataqaana boobsiiska way ka macaan tahay. hadaa hore u fiirin insha allah isku soo day adaa arki doona differencega. kabacdi intaasi maraqa marka xaga kusoo halmaamay, fadhigayga silcuu ahaa waa arkayseen, waa isku dhex daadsana maasha allah. soo xagana usoo kacnay, fadhigana ka shaqeynaynaa biidnillaah, maraqeynay ku noqonaynaa. sida arkaysaan fadhiga iska soo kala toosiyay hadda maasha allah. xagan waxaan ku daray misir, sorry video inuu daaran yahay mooday kaamirada laakiin maan taabanin. so waxaan ku darsaday waxay tahay misirta oo maxay ahayd yellowga ama redka meeda haysatid. insha allah 2 misir ku dari jiray, misirta oo yellowga lentuska ah iyo waxaa ku dari jiray salamuko mid ay dhahaan, laakiin salamuqadii iga dhamaatay. misirtaasaa ku daray bis, dab kale ku daynaysaa, wax ma shiidaysid, qaandadaasaa u qaadanaysaa, saasaa ku dhahaysa, ku jajabinaysaa maasha allah. bariis, baasto, waxaa doonta ku cuni kartaa maraqan, wax ma diidaa la dhahaa. laakiin anaga jabaatiya ku cunaynaa maanta maasha allah. hadda videogay intan soo gaartay aada u mahadsan tahay, waa kaaga mahad celinayaa. please waxaan kaa codsanayaa inay soo dhaweysaan, subscribe iyo like insha allah. haddaa share garaysiin waxaa waaye maasha allah. هذا أم هسه السلام عليكم.